bal markaan xagga ay waxaynu aagaynaa xiriirka u dhaxeeya labada wadan ee Turkiga iyo Imaaraadka Carabta. Xamso, Imaaraadka Carabta iyo Turkiga maanta waxaad moodaa inay ka duwan yihiin maalmo hore sida ay ahaayeen. Isku soo dhawaanshiya muuqda waxyaabo ay adkeed in gobolka dabcan uu ka dhaco ay hadda la dareemayaa. Bariga dhexe waa hawlo badan yahay khaliijku dabcan kama roona si gaar ah khaliijka iyo Ankarana waxaad moodaa inay taagtaag badan uu ka jiray. dhawaanaha socdaalla ayaa jiray oo xagga diblomaasiyiinta iyo qolyaha hay'adaha ammaanka madaxda u ah ama la taliyaasha ah ba Ankara iyo Dubai dabcan isu dhaafayay. waxaad moodaa in isku soo dhawaanayo in xiriir la sameysanayo iyadoo boogihii horey ay wali jiraan. arrinta ugu muhiimsan waxa weeyaan waxa leeyahay dhaqaalahooda labada wadan si weyn buu u korayaa iyo u kobciyaa. dhaqaale koritaankooda hawlo badan baa ka sokeeya. boogihii jiray daawo ma loo helo horta. Idris Imaaraadka iyo Turki run ahaantii khilaafkooda mar buu xoogaystay heer waxay gaartay UAE inay xitaa diyaaradaha dagaalka ay ku soo biiriso diyaaradaha dagaalka Greece oo mar waxaan u maleynayaa lagu soo riday diyaarad ay leedahay Imaaraadka howlgal ay sameynayaan ciidamada Turkiga hawada markan cadawtinimada halkaas bay gaartay waxaana la leeyahay khilaafka aad u weynaa ee ka dhaxeeyay labadan wadan waxay salka ku haysay qaar ka mid ah wadamada reer galbeedka ayaa dab si shidahayay labada dhinac isku diray laakiin maanta in la isla gartay in muhiim tahay sidoo kale waxaa dhibkaasi dhaawacaas badan keenay kadib 2017kii Qatar markii ay wadamada khaliijka ay go'doon galiyeen Turkiga si weyn u taageeray Qatar arrintan cadawtanimo iyo khilaaf badan bay keentay waa tii Turkiga ciidamo fara badan u geeyay Qatar taasoo markii ka dambe sababtay in hadalla la isu mariyo maxaan ku yiraahdaa warbaahinta labada dhinac ba la isciideeyo laakiin waa muhiim labada dhinac in ay ganacsigooda iyo khilaafkooda ay si hoos u xaliyaan oo si laba wadan oo walaalo oo muslimiin ah weeyaan in la walaaliyo shacabkii in ganacsiga labada dhinac la isku furo marka anigu waxaan baan oran karaa cidii dabka shidi jirtay labada dhinac isku diri jirtay baa meesha ka baxday hadda waxay ogaadeen khaasatan Imaaraadka wuxuu ogaaday in muhiim ama waqtiga saxda la joogo in Turkiga lagu soo noqdo oo heshiis lala galo qadiyada badan ama meelo fara badan bay ku kala aragtidu wanaayeen sida sheegtay arinta Qatar waxay ahayd amaleynaya gunta hoose khilaafkii ahayd Liibiya iyo socdaalkeedii iyo Turkiga markuu qorshahaas qayb ka noqday waxay noqotay qadiyad kale oo adag waxaad moodaa inay Masaarida iyo Imaaraadka iyo Sacuudiga si dhow ay u diidanayeen dhaqaaqa Turkiga iyadoo aan siyaasadda laga heshiin dhaqaale laga heshiin karaa aan kugu daray sidoo kale khilaafkaasi waxa ku jiray Liibiya waa la ogaa in Liibiya Turki gaar u dagaalameysay Imaaraadka iyo Khaliijka ilaa Egypt iyagoo gees ahayeen marka kulli waxyaabaha lagu dagaalamay inta badan waa siyaasad waxa laga yaabaa in siyaasadda gaar loo dhigo laakiin dhaqaalihii uu muhiim ka yahay siyaasadda macnaha siyaasadda waa arrimo gooni ah dhaqaalahana waa arrimo gooni ah oo macnaha u faa'iideynayo shacabka labada wadan khilaafka kama dhaxeeyo shacabka labada wadan khilaafka wuxuu ka dhaxeeyaa madaxda labada wadan marka waxay muhiimad ay siinayaan in bal aan isu furno dhaqaalaheena ama ganacsiga labada dhinac si aan uga faa'iideyno labadeena shacab ku ganacsanayo labada wadan wixii siyaasad ah oo macnaha isku khilaafsanayna ayagu si gooni ah looga madax baneeyo arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda la kala fogeeyo adoo soo koobi waxaa leedahay maanta waa markii iyo dabcan mudantii mudnayd in labada wadan dhaqaalaha toos u abaaran ka hadalkeeda haddii dhaqaaladu uu kobcaan labada wadan ba faa'iido u tahay aad iyo aad wixii siyaasadana siyaasad banaanka ha waya